degmada Burtile ee gobolka Lugan waxaa lagu soo gabagabay shir uga socday beela walaalaha wadada gobolada Soo iyo Mudug kaasoo daarana xoojinta nabadda iyo waxyaabaha ka dhiman sidii loo dhameystiri lahaa oo muddo 2 cisho uga socday degmada waxaana ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dimuqraadiyadda wasiirka caafimaadka xildhibaanada ka soo jeeda labada beelood waxaana ugu horeey halka ka hadlay hawleenada shirka Cabdikariin Xaaji Cabdi Garaad isagoo faahfaahiyay ujeedka laga lahaa shirka loo qabtay odayaasha labada beelood ogtihiin baa labadan beelood Umar Maxamuud iyo Bahar Rasme waxaa dhex maray dagaal ehliya oo xun baa dhex maray oo muddo soo jiitamayay alxamdulillah hadda waa soo gabagabeen gogashii Bashiir Islaan Faarax uu dhigay meeyaagle waa xal u noqotay gogashaas oo shirkaas loo bixiyay guulad shirka waxa ka soo baxay dhowr qodob xabad joojin guddi nabadeed oo ka kooban xuduudaha dagaalka socdo oo 6 tuulo oo laga xadka ku yaala sidoo kale waxa isna halka ka hadlay gudoomiyaha degmada Burtile Allah ya maaskale maanta isuka ay keenay kulankan waan dareemayo farxad weyn waxaan soo dhaweynayaa waftiga wasiirada iyo xildhibaanada inooga yimid caasimadda dawladda Puntland ee Garowe mudana wasiir soo dhawow adiga xildhibaanaduba waxa kale oo halkan kulankeenan uu ahaa wafti ka yimid deegaanada Qoriley iyo Saxdeer Meegagle Magacley dhinaca kale waxa iyaguna halka ka hadlay odayaasha labada beelood iyagoo ka hadlay baahiyaha ku gadaaban si socoshada iyo xoojinta labada iyo caqabadaha hortaagan iyo waxyaabaha u baahan in wax laga qabto waa loo mahadnaqay reer Burtile shacabkooda iyo maamulkaba iyo dadweynahaba hore loogu mahadnaqay hadana oo mahadnaqaynaa martigeliyay wuxuu halkaas ugu timi shirkanu sida laga waramay waa shir nabadeed weey mahadnaqaad reer Burtile iyo maamulka iyo odayaasha iyo shacabkaba waxaan kaloo halkan ku soo dhaweynaynaa tan odayaashii kolba ka yimid deegaanada gobolka Soo iyo hawdkiisa waqtiga wasiirada inooga yimid Puntland waana ka soo horeeyay oo 15 ka ahaa oo nabadoonada ku jireen oo maslaxadii iyo nabadii labada beelood salka u dhigay oo dadka intiisa badan waa ku kala tagtay odayaasha oo kula jireen iyo sidii la isugu yimid iyagoo aan marna gacanta kala bixin oo habeenkii guureynayay oo maalintii soconayay oo wax kasta oo wax ka iman karaan ka dawtay ilaahay baa mahad balaaran baan halkan uga soo jeedinayaa Allah xidhimaan Aadan Yuusuf Aadan oo ku magac dheer Abu Yaxye oo kamid ah xidhimaanada dawladda Puntland isagoo la ballan qaaday waxyaabaha emergency-ga ay u baahan in si degdeg ah wax loo qabto inay wax ka qaban doonaan rag badan oo hawsha hore ugu jirayna way jiraan oo faa'id oo kale oo soo aan xildhibaan ahayn in badan ka soo shaqeeyay hawsha uu ku jiray marka anoo soo gaabinayo oo waqtiga kuleel uu iska yahay oo dadku ay iska daalan yihiin wasiiraduna ayaga dambeynayaan 18 foosto iyo intii Cabdikariin sheegay ahaa 600 horta waa qaadnayada ugu dambeyntii hadalka isku dawmaray wasiirka caafimaadka dawladda Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Cabdiraxmaan iyagoo la sheegay inay wax ka qaban doonaan baahiyaha ay sheegeen odayaasha labada beelood ee ka jirta deegaanada si wanaajino ama dardar gelino nabadeynta beelaha walaalaha ah ee muddada badan ay dhibaatada dhex taalay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaa shirkii ugu horeeyay nabadana ka bilaabantay Meegagle sanad iyo 2 bilood ka hor inaan joogay anigoo wasiir ahayn qof shacab ah oo waqtigiisa ku luminayay iyo dadaalkiisa u gelinayay si nabadani u hirgasho ayaan aad ugu faraxsanahay aan maanta taagnahay tiyo gabagaba ah
oo runtii aad moodo in meel fiicanna ay marayso waad fahmi kartaan maalinta meegaagle maanta waxay maraysaa meel aad u fiican oo gabagaba ah kaliya magta intii ugu dambeysay in la kala qaato uun baa dhiman bay la tahay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa oo ayna ugu horeeyaan garaad jaamac garaad cali iyo islaam bashiir islaan cabdille oo iyagu aasaas iyo budhigo u ahaa dadaalkan in labadan reer colaadii dhex madhay la soo afjaro qaarta ceel la sameeyey iyo biyo la dhaamiyo midna lagama bixi karo laakiin ilaahay ayaana ka saari kara ilaahay roob hayna siiyo odayaal mahadcelin kadib dadaalka dheeroo la soo maray iyo shukriga rabbiga aan ugu shukrinayno natiijada wanaagsan uu ka soo saaray waxaan jeclahay hawl kastoo la qabtaa waxay leedahay siyaanbaqaadin iyo xoojin iyo adkayn si ay tiirar adag ugu hirgasho haddii lahayd marka si ay tiirar adag ugu hirgasho waxaan haddii lahayd maalkaan jeclahay inaan isla qaadanno lagana shaqeeyo sidii dadkii sugayay in xaqoodii la siiyo loo siin lahaa waa Khadar Tarabi oo idin kala soo hadlaya degmada Burtile ee gobolka Lugaan.